Assalaamu calaykum. Kulan wanaagsan meel walba aad joogtaan. Waxaynu maanta ka hadlaynaa dhinaca internetka. Toddobaadyadii ugu dambeysay isbuucan waxaa jira gabadh Soomaaliyeed hees ay qaaday oo internetka aad ugu faaftay, gaar ahaan aaladda TikTok ee muuqaalada gaagaaban lagu wadaago. Haddaba saameynta heestan ayaa noqotay mid cajiib ah, mid gaadhay dad aan aqoonba xataa Soomaalidu waxay tahay, iyadoo noqotay hees caana ama adduunyada oo dhan gaadhay. Ama aan si kale u dhignay dhinaca baraha internetka ee bulshadii caalamka qabsatay iyadoo haludhigeedu ahaa sii nafta. Sida heestan ka muuqata waxaa qaatay gabadh Soomaaliyeed oo markaasi xijaaban. Haddaba waxaa muhiim ah in aynu falanqeyno ama aan si gaar ah haddii aan nahay Soomaali aan u eegno waxyaabaha caalamkan ama koonkan aan ku noolnahay ee markaasi baraha bulshada marka la fiiriyo faa'iidooyinka uu leeyahay iyo khataraha uu leeyahay. Waxaa jira dad doonaya inay caan noqdaan laakiin dhibaato xun sameynaya ama dhaqankooda ku sameynaya ama diintooda ku sameynaya. Laakiin gabadhan Nimco Happy waa waqti uu Ilaahay u qoray ama waa calaf nasiib Ilaahay siiyey in ay guulaysato oo waqtigu uu ka hiiliyo. Heestan muddo dheer ka hor ayaa la qaaday oo haatan aan filaya inay kasoo wareegtay 4 sannadood ka hor, laakiin waqti xaadir ka noqotay mid maanta baraha internetka ee bulshada ku xiriirta gaar ahaan TikTok oo ka mid ah meelaha loogu isticmaalka badan yahay caalamka ay haysato markaas. Xataa sidaan soo sheegnay dad aan Soomaaliga garanaynin, xataa Soomaalida aan garanayn ayaa isqaadaya oo markaasi ku luuqeynaya heestan iyagoo soo bandhigaya jacaylka ay u qabaan. Haddaba markii ay heestani faaftay internetkana aad loogu faafiyey iyo TikTokta, gabadhan oo in muddo ka baxsanayd internetka ayaa waxaa la furay oo la farigareeyey baraheeda internetka gaar ahaan Instagramka iyo TikTok, kuwaas oo markiiba noqday bogog hore laga aqbalay oo calaamadaha tigta ee lagu aqoonsanayo dadka caanka ah ee taageerayaasha badan haysta, maadaama akoonadii cusbaa ee ay furatay ay markiiba kusoo xoomeen kumanaan boqolaal kun oo qof oo daafaha caalamka kala jooga, iyadoo oo saarjinnada internetkana sida Google, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dhammaan laga raadinayo Nimco Happy iyo cidda ay tahay. Haddaba gabadhan qof walba oo raadiya waxa u soo bixi doonta cidda ay tahay gabadhani. Tusaale ahaan, gabadhan waa gabadh asturan oo dhaqankii Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka ka muuqato, ama heesta meel haysinbe. Halka hablooy aan ognahay in ay jiraan hablo doonaya inay caan baxaan oo ay ku caan baxaan jirkooda. Haddaba ka waran gabadh adduunka oo dhan raadinayo oo ku soo caan baxday jirkeedii oo asturan, dhaqankeedii oo asturan iyo bulshadeedii oo ay caalamka horgeysay. Macnuhu waxay ka dhigan tahay arrinku ma yara, arrinku waa arrin aad u ballaaran, laguna farxo lana bogaadiyo. Inantana waxaanu kula tartaarmi lahayn haddii uu codkeenu gaadhayo in aysan ka badbadin oo aynan wax dhibaataa sameynin, maadaama ay waxyaabaha wanaagga dhinaca wanaagsan ay isku bedeli karaan shar. Haddaba waxaan leenahay Ilaahay ha ka xijaabo waxyaabaha dhibaatada keena ee markaasi dhinaca xun, inaga u rajaynayna barwaaqo iyo bashbash inay ku noolaato walaasheen. Haddaba ogow gabadhay, wax walba waxay ku xidhnaan doonaan nasiibka uu Ilaahay qoray qof walba. Gabdhaha maaha, cid walba waxa uu Ilaahay u qoray adduunkan ay ka qaadi doonaan iyadoo hore loo qoray. Tusaale waxaaba kuugu filan heestan xilliga la qaaday iyo xilliga ay soo shaac baxday ee adduunka qabsatay. Waa wax aad u kala duwan oo calaf Ilaahay u qoray ay heshay. Maanta gabadhaas waxay gashay barwaaqo iyo bashbash, taas oo ay macnaheedu tahay in heestan dhaqaale laga samayn doono wixii ka dambeeya, in dhaqaale $1,000,000,000 laga samayn doono, in ay ka iibsadaan shirkadaha waaweyn ee caalamka, kuwaas oo saarjinnadooda marka la raadiyo ay bogogooda internetka loogu hagaagi doono, kuwaas oo gabadhan lacag siin doona. Taasoo wax macquul ah oo sababaysa in heestan la iibsado. Dabcan heestan 4 sannadood kadib gadmaysa waa nasiib. Intaas ayaan kusoo koobi karnaa. Markaa lama dhihi karo wax walba in laga badbadiyo, dhaqankii laga tago, diintii laga tago. Gabadhan iminka dhaqankeedu ma muuqato wax
qof walba oo raadiya muuqaaladeeda ma heli doono wax ay ku muujinayso dhaqamo shisheeye inay sidato, waana dhaqan iyo kaljarka Soomaalida oo ay la hortagtay adduunka hortiisa. Waa farxad gooni ah oo aad loogu farxo. Arrinka ugu muhiimsan ayaa ah in ay bulshada caalamka horgeysid waxaa tahay adoo aanan ku doorsanaynin dhaqamo shisheeye iyo waxaadan shuqulba ku lahayn. Arrintan gabadhan walaasheena ah waa gabadh aad u asturan xaqiiqdii marka la eego baraheeda bulshada. Baaritaano fara badan oo aan ku sameeyeyna ma jirto wax muujinaya inay iskaga mid dhigayso shisheeyaha, waana dhaqankii Soomaaliyeed oo dhab ah. Taas waxay muujinaysaa ama waxay dhiirigelin ugu filan tahay hablaha in ay ku daydaan oo aysan isqaadqaadin ama aysan iska dhigin iyagoo jirkooga bannaanka soo dhigaya ama xubnahooda Ilaahay siiyey si ay markaa caannimo u helaan. Tusaale ayaan siin doonaa. Waxaa jira gabdho inta badan TikTok-ta caanka ka ah ama inta badan muuqaaladooda lala wadaago, kuwaas oo ugu dambeyn meel xun ku dambeeya. Gabadh ayaa ugu dambeysay, gabadhaas markii ugu dambeysay waxaan maqlayay iyadoo la leeyahay waxa laga hay muuqaalo iyadoo mur iyo qacana. Waa masiibo aad u weyn, qofkaana noloshiisa taaban doonta. Haddaba marya dhigiddaas laguma soo caanbixi doono, adduunkana waxba kama tihid, xataa cid ku taqaana ma tihid. Laakiin waxa ugu muhiimsan ee ugu quruxda badan ayaa ah arrinkan in la dhiirigeliyo, isla markaana ay tahay waxyaabaha keena inta badan in bulshada caalamku ku aragto dad jira. Dad ayaan ogeyn ama aqoonba Soomaalidu waxay tahay ama Soomaaliya oo aan aqoonba oo maanta si fiican u yaqaana kuna baadhaya oo ogaanaya bal halka adduunkan ka degan tihiin ama aad joogtaan. Dabcan waa wax aad loogu farxo. Inta badan internetkaas maanta tuulada adduunka ka dhigay ee la wada joogo waa meel wax walba laga faa'iidi doono, dhinaca wanaagsan iyo dhinaca xun. Qof luma oo markaasi kaljarada dhaqamada kala duwan ee internetku tuulada ka dhigay ku dhex luma, iyo qof isagu markaasi dhaqankiisa ku faafiya oo laga daba daydo oo lagu faano. Waxa ugu mudan ee ah in lagu faano ayaa ah dhaqanka iyo diinta. Gabadhanna intaaba way muujisay, waxaana kula dardaarmi lahayn in ay dhowrto oo aan la buunboonin oo markaasi aan laga badbadin waxa ay tahay gabadhaas walaasheena ah. Haddaba sidaan wada aragno balaayiin qof oo dunida daafeeda ku sugan ayay gaadhay. TikTok-tana waqti xaadirka waa ka caan. Gabadhaasna way guuleysatay. Hambalyo. Anigoo Xamse Maxamed ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. Intaan mid lamid ah dib ugu kulmi doono. Sidaa iyo nooli kulantay.